qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka nabadoono iyo siyaasiyiin ka tirsan beesha Mudullood ayaa ka soo horjeestay shir la filayo in lagu qabto magaalada Muqdisho. Shirkaas oo ay ku tilmaameen in dana gaar ah laga leeyahay isla markaasna dowladnimada looga soo horjeedo. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo kulanka ka hadlay. Mudullood ayaa shir qabanaya oo casuumaya hawiye iyo Mudullood waa dad is casuumi kara dhaqan iyo maxaan ku yiraahdaa taariikh iyo xadaarad soo wada maray laakiin gogosha la sheegay ee aan xaqiiqda aan ku salaysnayn oo baal marsan halkii gogoshaas laga abaabuli lahaa ama laga idmi lahaa waxaan leenahay iskuma toosna naga waxaan halkaan isugu imaanay dhaqanka Mudullood wuxuusan ogeyn inaan meeshaan aan banaanka wararka ka soo duulduulay waxaas waxba kama jiraan leenahay waxaan wax ka ognahayna ma naga waxaan ku awoornaa oo aan ku abtirsanaa dhaqanka Mudullood ayaan ku abtirsanaa waxaan dhaqanka ka soo bixinna cid banaanyaha la meereysta banaanyaha soo wareejiso beeraygiisa iyada laga rabaa in gobol la isu dhigo oo dadka walaalo oo isxasuusto way fiican tahay wariba hadda waqtiga lagu jirno waqtiga ku habboonay waa tahay laakiin waxay mudan tahay wax la isla ogyahay oo dadka ama duubabka ah ama nabadoonnada ah ay ka warqabaan oo meesha Mudullood ku mudaysan tahay ayaa lagu wici karaa marti kale oo gobol lagu fidi karaa haddaan iswarsanay oo duubabka wax ka weydiinay oo nabadoonnada xirbaadka oo hoggaanka beelaha wax ka weydiinay waxaana soo baxday warkaas la sheegay inaysan waxba ka ogeyn beelweynta Mudullood waxay leedahay sumad ee lagu yaqaan sumadii beesha Mudullood halkaan ay fadhisaa waxayna ka digaysaa waxyaabaha been abuurka ah ee meelaha la wareegayo in aan matalin beelweynta Mudullood wakiil laysan ka ahayn magacoodana aysan ku hadli karin hawiye waxaad leenahay Mudullood xataa oo waxba goyn wax la sameey karin hala kulminina Mudullood meeshaan oo fadhaa dhaqan uu leeyahay duub uu leeyahay wuxuu leeyahay siyaasiyiin uu leeyahay dad oo loogu tago uu leeyahay laakiin dad oo xataa iska ordaya orod hala kulminina gabagabadii kulanka waxaa isna dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha golaha horumarinta beesha Mudullood Muxyidiin Xasan Afrax annagu gobashaas lukumanin akhyaartaynu kumale imaamku kumale ugaasku kumale malaaqu kumale suldaanadu kumale maartay dadka kumale duubabka Mudullood iyo dhaqankuba wax saameynay ku leeyihiin waa waswaraysanay waas ka warqabnaa waayo waa tilayar dawladda Soomaaliyeed ninkaligiiyo male nin shala ahaayo male ninka hadda hayaana male ta waqtigiisa uu leeyahay bas waqti kasta ma laha waxaan ka wadaa tartanka aad moodo isbarbaryaaca oo ana marmaha joogi jiray adigu maad ka gurto wala dagaa ama iska fogaa waxaan leenahay marka Soomaali talaab hore loo qaado ma talaab kada loo qaadayo cidaan ma fadhiyo Mudullood ma ogolo mana rabto Cabdiraxmaan Shoode Universal TV